warsoo dhawaada tiimkii maxamed cabdulaahi farmaajo ee nabad iyo nolol waxa ay sameeyeen waa cadaro weyn iyadoo ay muxaafadka iyo mucaaradka labadaba la yaaban yihiin waan kula wadaagi doonaa ugu horeyn ha iga degdegin maxaa lagaaga baahan yahay muuqaalkan like saar sii foge ama saaxiibada ugu yaraan la wadaag inaan like saartan ayaan ka wada hadlinba aad iyo aad oo maasanta haddii aan ku bilowno madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xabiibul malaayiin ayaa dib ugu soo noqday gudaha Soomaaliya maalmo ka hor ama isbuuc ka hor haddaba waxaa jira program weyn oo ah wada heshiisiinta iyo wada hadalka mucaaradka iyo muxaafadka labada dhinacba gudiga ay iska soo saareen waxaana lagu wadaa in maanta shirka uu ka furmo hotel Digaale iyadoo uu maanta ka furmayo sidoo kale tan maalinka berri ay ku soo biiri doonaan mas'uuliyiinta labada dhinac sida golaha mustaqbalka madaxdooda iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya madaxdooda ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wada hadaladan waxa garwadeen ka Turkiga waxaana dalka ku sugan sargaal markaas ku xigeenka madaxa sirdoonka ee dawladda dalka Turkiga wararku waxa intaas ku darayaan in tiimkii maxamed cabdulaahi farmaajo ay wacdar sameeyeen haddaba qaabkee ayaad isweydiinaysaa laakiin waan kula wadaagayaa xogaha waxa ay tilmaamayaan in tiimka nabad iyo nolol loo ogolaaday inay qayb ka noqdaan wada hadalada iyadoo markaas ay yihiin xisbiga nabad iyo nolol sidaasina ay shirka ku fidhiisanayaan dhankoodana waxa ay wadaan doorasho qaf iyo cod ah oo xisbiga nabad iyo nolol ay soo diyaariyeen ajandaheeda sidoo kale tan halkaasi ay ku faaqili doonaan mucaaradkan waxa ay wadaan doorasho qaf iyo cod ah laakiin hanaanka beelaha 4.5 ku dhisan halka dawladda federaalka Soomaaliya iyadana ay wado ay riixayso barnaamijkeeda doorashada qaf iyo codka ah ee axsaabta ku dhisan ee dhammaan maamulada laga wada qabanayo si kastaba ha noqotee maalmihii ugu dambeeyay waxa socday kulamo wada hadalaha oo ay lahaayeen gudiyada farsamo iyadoo shirkana si toos ah ugu bilaaban doono marka waxa la leeyahay tiimka farmaajo waqti aad looga diidanaa inay gudaha u soo galaan mucaaradka isla maranta loo diidanaa inay qayb ka noqdaan markaasi waa sidaan xogaha ku heleynay madasha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa hadda waxa la leeyahay ixtiraam gooni ah ayaa loo hayaa sidaas daraadeed waxay ka qayb gali doonaan kulanka aragtooda ay dhiiban doonaan haddaba adigu sidee u aragtaa in maxamed cabdulaahi farmaajo uu qayb ka noqdo wada hadalada dalka iyo asaga iyo xisbigiisa isla marantana aragtida ay wadaan la dhageysto xogtan aad ay muhiim u tahay qaybta hoosarti dibshada nagu reeb وانا كل شيء قفي ودغن واديق موقالكن لا اسك صار اسك فوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته